kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah cabsi xoogan oo ay muujinayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho xilli dibadbaxa la qorsheeyay ee ka hartay muddo saacada ah. Wararkii ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagi doonaa, sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa ay ka hadleen waxa ku qasbay madaxweyne Farmaajo inuu soo dhaweeyo natiijada shir uusan aqoonsaneen. waxyaabii laga yiraahday ayaan idiin soo gudbin doonaa, sidoo kale qodobada aan warkeedii kugu hayo waxaa ka mid ah warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaa ka dhalan kara shirkii taliyasha ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya oo ay fariinta ugu direen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya ayaa kulamo waxa uu ka wadaa magaalada Muqdisho. ma dhaba in Imaaraadka Carabta ay dib u soo celinayso saameyntii siyaasadeed ee ku lahayd gudaha Soomaaliya. wararkaas iyo warar kale oo aan idiin qarinayo ayaan idiin soo gudbin doonaa muddada warka aad la socotaan. cabsi xoogan oo ay muujinayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa la soo sheegaya xilli dibadbaxa la qorsheeyay ee ka hartay muddo saacada. gole isku magacaabay golaha bulshada Banaadir oo maalmihii ugu dambeeyay waday qabanqaabada banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si adag ugu jawaabay go'aankii uu maamulka gobolka Banaadir uga hor yimid banaanbaxaasi. qorshaha ayaa ah in maalinta biri ah oo Khamiis ah la qabto dibadbaxa, waxaana hormuud u ah oo dhowr jeerba warbaahinta ka hadlay xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi oo ka mid ahaa baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya. xubnahan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay go'aanka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir kadib markii ay ku doodeen in banaanbaxa uu yahay xaq dastuuri ah. waxa ay ku hanjabeen in tallaabo adag laga qaadi doono sarkaalka ama mas'uulka isku daya inuu awood ciidan isku hortaago banaanbaxa Khamiista, iyaga oo sheegay in mas'uuliyadda wax kasta oo dhaca ay dusha u ridan doonaan maamulka gobolka Banaadir. dhanka kale, siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in banaanbaxan uusan micno badan soo kordhinin marba haddii madasha wadatashiga qaran ay soo saareen qodobo lagu mudeynayo waqtiga la soo gabagabeynayo doorashada. shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa cabsi xoogan la soo dareystay oo ku aadan in dibadbaxan uu isku bedelo mid rabshado wata oo ay xilligan shacabka baqdin xoogan ay ka muujinayaan. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa ku qasbay madaxweyne Farmaajo inuu soo dhaweeyo natiijada shir uusan aqoonsaneen. xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu jeediyay khudbad lama filaan ah oo u muuqatay qaab ololo dib u doorasho ahi, isagoo sharxay hanaankii ay u shaqeynaysay dowladdiisii muddadii uu joogay xukunka. sidoo kale, Farmaajo ayaa soo dhaweeyay heshiiska cusub ee doorashada looga gaaray shirkii golaha wadatashiga qaranka oo maalmo ka hor Muqdisho lagu soo gabagabeeyay, isagoo madaxda ugu baaqay in ay ku dhaqmaan heshiiskii ay gaareen. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wajahayo culeysyo dibadda iyo gudaha kuwaasi oo ku qasbay inuu soo dhaweeyo waxyaabihii ka soo baxay shirkii uu diidanaa ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxa uu madaxweynihii hore ee Farmaajo oo isku dayayaa inuu dadka israaciyo kadib markii uu ku fashilmay tallaabooyinkii u dambeeyay ee markaasi uu ku doonayay inuu awoodda kula wareego sida uu hadalku dhigay. sidoo kale, waxa uu carabka ku dhiftay in khudbadda Farmaajo ay tahay mid uu indhaha caalamka iyo weliba gudahaba isaga jeedinayo, isla markaana uu wada shirqool cusub oo waxyeelanaya geedi socodka dowladnimada iyo hanaanka doorashooyinka dalka sida uu hadalku dhigay. Farmaajo ayaa inta badan khudbadiisa waxa uu kaga warbixiyay dib u dhiska ay dowladdiisa ku sameysay ciidamada qalabka sida, isagoo markaasi ku bogaadiyay sida nafurnimada leh ay markaasi u difaacaan dalka. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxa ka dhalan kara shirkii taliyasha ciidamada qalabka sida oo ay fariinto adag ugu direen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. weli waxaa walaac xoogan ka taagan yahay xaaladda amni ee dalka kadib markii uu fashilmay amarkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee uu siiyay saraakiisha ciidamada, kaasi oo dhigayay inaysan ka amar qaadan karin cid aan isaga ahayn.
waxaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ka qabsoomay dhowaan kulan ay soo abaabushay madaxtooyada Soomaaliya sida la shaaciyay kaasi oo isugu yimaadeen taliyasha ciidamada xoogga dalka iyo waliba saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya. Kulanka waxaa ka soo dhex muuqday taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha amaba kusimaha taliyaha hay'adda NISA iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Banaadir. Falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliya waxay qabaan in kulankaas uu ahaa mid dhoolatus ah oo fariin loogu dirayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, maadaama taliyasha iyo waliba saraakiisha ka soo muuqday ay ahaayeen kuwa weli si toos ah kaga amar qaata madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa xusid mudan in kulankaasi wasaaradda gaashaandhigga ka qabsoomay iyadoo aan weli wasiirka cusub ee dhowaan u magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble aanu xafiiskiisa u shaqo tagin. Ra'iisul wasaare Roble ayaa horey waxa uu amray in ciidamada aysan ka amar qaadan karin cid aan isaga ahayn kadib markii uu sii xoogaystay dagaalka siyaasadeed ee kala dhexeeya madaxweyne Farmaajo oo sida uu sheegay isku dayay inuu awood ciidan ku qabsado xafiiskiisa. Arrintan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysaa iyada oo madaxda golaha wadatashiga qaranka ay ku fashilmeen inay isku raacaan in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, maadaama uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli saameyn xooggan ku leeyahay taliyasha iyo saraakiisha ciidamada sida ay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka ah. Safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya ayaa kulamo waxa uu ka wadaa magaalada Muqdisho iyadoo dowladda Imaaraadka Carabta ay wado olole ay dib ugu soo celinayso saameyntii siyaasadeed ee ku lahayd Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu ku qaabilay safiirka dowladda Imaaraadka Carabta ee u fadhiya Soomaaliya Maxamed Axmed Cuthmaan. Madaxweynaha Puntland ayaa uga mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta garab istaagga iyo gurmadka ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed ee xilligan abaaraha xooggan ay saameeyeen. Safiirka ayaa dhankiisa waxa uu ku ammaanay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani doorkii uu ka qaatay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee ka qabsoomay magaalada Muqdisho, kaas oo laga soo saaray heshiis ku saabsan arrimaha doorashooyinkii waliba muddeynta xilliga sida rasmiga ah loo soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ee ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xumaaday sanadii 2018 kadib markii garoonka diyaaradaha Dancada International Airport ee magaalada Muqdisho lagala wareegay lacag malaayiin dollar gaaraysa dowladda Imaaraadka Carabta. balse ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhowaan dowladda Imaaraadka Carabta ka raaligeliyay dhacdadii lagala wareegay lacag malaayiin dollar gaaraysa bishii Abriil sanadii 2018. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu ballan qaaday in lacagtaas oo ku jirta gacanta dowladda lagu wareejin doono dowladda Imaaraadka Carabta waqtiga ugu dhow. Waxaana ra'iisul wasaaraha dowladda Imaaraadka Carabta uu kaga mahadceliyay garab istaagida shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna sheegay in ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ah ka dhexeeya. Arrimahan ayaa u muuqda in xiriirkii iyo waliba galaangalkii ay siyaasadda Soomaaliya ku lahayd dowladda Imaaraadka Carabta uu dib u soo laabtay iyadoo muddadii ay jirtay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriir dhow la lahayd dowladda Qatar oo la sheego in siyaasadda Soomaaliya ay lacag fara badan ku bixisay.